shirkadda sharaabka SBI Coca-Cola ayaa maanta magaalada Burco ku soo bandhigtay biyo sifaysan oo ay soo saartay kuwaasi oo lagu magacaabo Dasani waxaana munaasabadan ka soo qayb galay bulshada qaybaheeda kala duwan mas'uuliyiin ka socday golaha deegaanka degmada Burco iyo mas'uuliyiinta sarsare ee shirkadda SBI Coca-Cola biyahan oo qayb ka noqonaya wax soo saarka cabitaanada ay soo saarto shirkadaasi ayaa waxa faahfaahin ka bixiyay xubno kamid ah mas'uuliyiinta sarsare ee shirkadda SBI Coca-Cola xafladda taafuka biyaha Dasani ee shirkadda SBI Coca-Cola xafladdan taafuka oo noqon doonta oo Burco soo yeeshay maanta guud ahaan gobolka waddanka oo dhan inay Burco noqoto halkii laga dhawaaqayay aad baan ugu faraxsanahay ka gobolaha bari ahaan iyo ka Burco ahaanba inay maanta noqoto xaruntii laga dhawaaqayay waxay ka mid yihiin wax soo saarka shirkadda caalamiga ee Coca-Cola oo ay ka mid noqonayaan 500 oo nooc oo wax soo saarka shirkadda Coca-Cola heer caalami ah ay ka mid yihiin kelmadda Dasani waxa laga yaabaa inay isweydiisaan Dasani macnaheedu waxa weeyaan wuxuu ka yimid gobolada Asia oo looga magac bixiyay waxa weeyaan purity shake la yiraahdo ama biyo saafi ah oo badax tiran marka kelmadda Dasani waxay ka dhigtay waa biyo saafi ah waxay kaga duwantay biyo kale Dasani waa biyo la soo mariyay lab ama la soo mariyay muxuu ahaa baaritaan oo laga baaray dhammaan waxyaabaha halis u keena dadka oo caafimaadkooda iyo tayadooda iyo fayadooda uu sugan yahay SBI waxa la aasaasay oo xabadii ugu horeysay Coca-Cola ama ka soo baxday waxay 2012 kaga duwan tahay shirkadaha kale Coca-Cola SBI Coca-Cola waxay wax badan ka tartaa bulshada sida waqtii gobolka Togdheer waxay sameysay biyo gelintii bay ka qayb qaadatay imika waxay lacag badan gelisay hargeysa oo ay biyo gelinayso odayaal iyo madax dhaqameed munaasabadaasi ka soo qayb galay ayaa iyaguna soo dhaweeyay biyahan cusub ee Dasani waxa weeyaan iyagana waa salaameynaa waana soo dhaweynaynaa sida wanaagsan ee iyagana loo soo dhaweeyay ayaanu idinkana idin soo dhaweynaynaa sida wanaagsan noo ammaanteen ayaanu annaguna idin ammaanaynaa waxa weeye waynu soo dhaweynaynaa biyaha haddee bedriyaha noo keenteen ugu horreyn marka ugu horreysa gobolka Togdheer ama degmada Burco ka daafurteen ee ay ka dhigteen tii ugu horreysay daafurkii ugu horreysay waanu idinla qaadanay waanu soo dhaweynaynaa insha Allahna waxaanu rajaynaynaa inaanu socodsiino biyaha Agesta kale maayir ku-xigeenka degmada Burco xildhibaan bidhi iyo maareeyihii hore ee wakaaladda biyaha Burco ayaa shirkadda SBI ku amaanay sida ay uga qayb qaadatay horumarka ka socda gobolka kuna bogaadiyay biyahan cusub ee tayada leh waxa weeye waa shirkadaha horena wuxuu u gashaday magaalada degmada imikana aynu u joognay inay keeneen biyo runtii tayada oo fiican oo inoo sheegeen oo la baaray oo aanu eegno ka marxatinahay inay yihiin biyo runtii markaad eegto aad akhrido in la baaray ka muuqato oo tayare kaliya lacag intaa leeg waxaa sheegay maaliya lacag intaa leeg $600 mar kaliya gelisay magaalada haddaanu nahay golaha deegaanka in biyo ballaarina loogu sameeyo maxay ahayd meelaha aanay biyuhu gaadhin ay ka mid yihiin biyada ee dadka qaxootiga ee jilicsan ay joogeen shirkadaasi ay markiiba ka soo jawaabtay dabeetana ku dhawaaqday in $600,000 ay gelinayso degmada Burco waa arrin aan markaati u baahnay leenahay Dasani baa imika maanta inoo hortaala jawaabta idinkaa laydinka sugayaa Dasani iyo shirkadii kalena waa tartamayaan idinkaa laydinka sugayaa waxay Dasani maanta runtii la soo baxdo jawaabteeda shirkadda SBI maanta biyaha reer Burco ay ku naaloodaan 50% iyadaa gelisay magaalada waa ogtii Cabdiraxmaan Roble Cabdilaahi Cabdiraxmaan Trike telefishinka caalamiga ee Kalsan TV magaalada Burco